kusoo dhawaada casharkeena imtixaanaha ahaa waxaynu ku jirnay chapterkii matrix ayaynu ku jirnay maanta waxaynu sharaxaynaa qaybtii waxaynu sharaxaynaa qaybtii ahayd determinant ayaynu ku jirnay oo aan kusii jirnay maanta waxaynu sharaxaynaa example ayaynu wax ka bixinaynaa calaamaadka determinant ay leedahay property 1 haddaynu ka hormarno calaamadeeda u muhiimsan midda koowaad haddaynu ka hormarno example ayaynu wax kasoo bixinay qaabka determinant loo raadiyo casharada hore ayaynu kasoo bixinay hadda waxa lagu yiraahday waxa raadisaa value of waxaan cadeynaynaa hadda waxa raadisaa lagu yiri the value of determinant minus unlateral yani haddii waxa lagu siiyey matrixka hadda waxa lagu siiyey matrix A waxa lagu siiyey elementskan oo ah A1 A2 A3 elementska ayaa lagu siiyey waxa lagu yiri if the rows haddii rowska waa laymankan rowska waxa weeye waa laymankan weeye hadda ka soo qaad row 1 waa laymankan row 2 waa kan laymankan kale weeye row 3 waa kan marka haddii rowyasha loo bedelo columns yani value waa determinantigeeda isma bedelayo qiimaha determinantiga hadda matrixkan hadda determinantics raadiyo oo hadhowna rowiskan column ahaan aan bedelo yani rowiskan aan column ka dhigo column u bedelo halkaas nooga cad aan column u bedelo isma bedelayo qiimaha soo baxay result iyo qiimaha soo baxay halka hadda wax ka cad waxa lagu yiri columnska hadda inta rows u bedeshid markii ay matrixkan columnskan nidaamka ay tahay columnskeedu oo determinantigeeda haysid iyo hadda rowska iyo columnska isku kala bedeshid sida hadda halkan ka cad columnska hadda row u bedeshid value-ga isma bedelayo isku result ayaa soo baxaysa waana cadeynaynaa hadda aynu cadeynan doonaa waxaan oranaynaa solution ayaynu oranaynaa solve ayaan soo qaadanayaa SOL oo soo gaabiyey solve SLOL ayaa soo gaabiyey marka waxaan raadinayaa matrixka ayaan raadinayaa aan soo qaato intii qiimaha la siiyey waxaan rabaa inaan determinant-ka raadiyo marka haddaan formuladii is xasuusino determinant maxaa lagu heli jiray haddaynu is xasuusino determinant haddaynu qorno waxa lagu heli jiray determinant maxaa lagu heli jiray determinant dat la soo qaatay dat A ayaan soo qaatay dat A soo qaadanaya maxaa lagu heli jiray determinant waxa lagu heli jiray haddaynu qorno A1 oo lagu dhuftay bracket-kan furto haddii aan bracket furto maxaan dhahayaa waxaan oranayaa cofactor of A cofactor of A1 bracket ayaan ku xiranayaa bracket ayaa lagu xirayaa lagu daray A1 A2 waxaan oranayaa haddaa doono A2 ka soo qaad A2 sidaas weeye A2 oranayaa A2 waxaan oranayaa isla cofactor of A2 waxaan qoranayaa cofactors of A2 cofactors of A2 oo lagu daray waxaan oranayaa A3 waxaan oranayaa cofactor of A3 waxaan oranayaa cofactors of A3
cofactors of A3 bracket ayaan furanayaa cofactors of A3 cofactor of A3 cofactors of A3 marka determinant-ga intaas ayaa lagu helaa determinant waxaa ka horeeya inaad marka hore soo heshid cofactor halkaa maxaa nooga cad cofactor ayaa nooga cad marka hore determinant intaan raadin waxa nooga cad inaan soo helno cofactorska marka waxaan qoranayaa cofactor maxaa lagu helaa cofactorska maxaa lagu helaa cofactor waxaa lagu helaa haddaan raadiyo ayadana waxa soo sheegnay casharka hore kusoo sheegnay cofactorka haddaan fiiriyo cofactor waxaa lagu helaa waxay la mid ahayd waxaa lagu heli jiray -1 row plus column oo lagu dhuftay maxaa ku dhufanaysaa minor baa ku dhufanaysaa minor ayaa ku dhufanaysaa waxaa ku dhufanaysaa minor sidaa ayaa ku helaysaa marka haddaynu soo qaadano matrixkan haddaan soo qaadano calaamadan waxaan ka delta u qaatayo waxaan rabaa inaan proof gareeyo moogta haddii rowiska columniska haddii row loo bedo inay isku mid noqonayaan isku answer ay soo baxayaan waa propertieska koowaad weeye badanaa waxaa lagu soo daraa su-aalaha ayaa lagu soo daraa imtixaamaadka marka waxaan rabaa hadda intaa inaan soo qaato saan u raadiyo determinant-geeda marka waxaan sameynayaa symbol soo qaadanaya hadhowna formula ayaa ku dabaqaya haddii aan soo qaato wixii noola mid ahayd calaamada delta equal baan oranayaa waxaan soo qaadanayaa A1 ayay ahayd haddaan soo qaato matrixkii hore A1 A2 ayaan qoranayaa A2 ayaan qoranayaa A3 ayaan qoranayaa marka waxaan qoranayaa B1 B2 B3 C1 أنا waxaan rabaa si simple inaan qoro C1 C2 and C3 marka waxaan rabaa si simple inta ay la mid tahay marka intaas ay la mid tahay waxaan raadinayaa determinant-ga saa u helo marka hore maxaan raadinayaa cofactors ayaan raadinayaa cofactorka hadda cofactors of A1 haddaan soo heliyo cofactors of A1 haddaan raadiyo si simple ayaa u sharaxaya cofactors of A1 cofactor maxaa lagu heli jiray cofactors of A1 yani waxaan rabaa cofactorska formula ayaa lagu helaa halkana maxaa haysaa cofactors of A1 cofactors A2 cofactors of A3 ayaa ku jira halkaas maxaa ugu jeednaa cofactors of A3 marka waxaan sameynayaa waxaan ku apply garanayaa cofactorka formulada waxaan oranayaa cofactors of A1 oo A1 tan ah waxaan dala soo baxay cofactors of A2 cofactors of A3 ayaa la soo baxaya kabacdi waxaan raadinayaa determinant-ka guud ayaan soo heliyaa matrixka marka waxaan sameynayaa marka si simple cofactors waxaan qoranayaa cofactors of waan qoranayaa cofactor
of A1 cofactors of A1 cofactors of A1 haddaan qorto waan raadinaya marka waxaan samaynayaa equal ayaan oranaya cofactors maxay la mid ahayd cofactor maxay la mid ahayd formuladii 1 plus row 1 plus column 1 marka waxaan oranayaa -1 ayaan soo qaadanaya -1 bracket ayaan ku xirayaa marka waxaan samaynayaa rowgan iyo columnka waxa weeye waa meesha A1 oosha A1 xagee oosha A1 waxay ooshaa row 1 iyo column 1 A1 xagee oosha halkaas ayay oosha ilaa cofactors of A1 ayaa raadinaya marka maxaan isku darayaa row 1 iyo column 1 ayaa isku darayaa marka waxaan oranayaa 1 plus 1 ayaa oranayaa because waa row 1 iyo column 1 rowga ayaa markasta horeeya row 1 column 1 oo lagu dhuftay waa oranayaa minor ayaa ku dhufsan minor ayaan qoranayaa minor maxaa ku helayaa hadda minor casharku ayaa si fiican ugu sharxay hadda minor of A way halkaas waa minor of A ila cofactor of A ayaa raadinaya minor of A marka rabo inaan soo saaro hadda halkaan hadda si fiican ugu qoro minor of A waxay la mid tahay minor of A1 maxay la mid tahay minor of A1 waxaan ku sheegnay يعني simply waxaan ku sheegnay A1 hadda column ahaan ka tirsan tahay inta ay ka tirsan tahay sax row ahaan ka tirsan tahay inta ay ka tirsan tahay sax minorka waxa weeye waa wixii aan relation lahayn A1 relation yaa la leh A2 A3 sababta see loo leeyahay row 1 A1 yaa relation la leh column 1 columnkan relation ay la leedahay isku column way B1 iyo C1 waa isku column marka wixii ka soo hara ayaa waxay noqonayaan minor waa wixii relation lahayn marka hadda marka qoranaya minorka maxaa qoranaya B2 B3 C2 C3 ayaan qoranaya sidaas weeye hadda halkan si fiican ugu muujiyo maxaa qoranaya minorka maxaa weeye waa B2 and waxa weeye B3 and C2 sama C2 C3 marka waxaan gelinayaa bracket ayaan ku xirayaa marka minor of A1 waa intaas marka waxaan qoranayaa minorkaas minor of A1 waxaan oranayaa B2 ayaan soo qaadanayaa B2 B3 C2 C3 marka waxaan qorayaa bracket ayaan ku xirayaa marka maxaa raadinayaa cofactorka ayaan soo saarayaa cofactorka intuu la mid yahay maxaan sameynayaa qaabka loo raadin jiray maxay kan isku dar -1 power isku dar waa 2 soo maha kan waxaan oranayaa labadan ayaa isku dhufanaya B2 C2 mar inta ayaa ku hormaray marka hore kan ayaa lagu hormaraa markii isku dhufanisaan kala camal aad aragtid B2 maxaa ku dhufanaysaa C3 vice versa ayaa isku dhufanaysaa kaas ayaa ku hormaraysa waxaan oranayaa marka B2 bracket ayaan furanayaa waxaan sameynayaa marka B2 ayaa wax ku dhufanayaa C2 C3 ayaan ku dhufanayaa C3 maxaa oranayaa haddana B3 waxaan ku dhufanayaa C2 B3 ayaa wax ku dhufanayaa C2 B3 ayaan ku dhufanayaa C2
marka waxaan sameynayaa inta ayaan sameynayaa marka waxaan sameynayaa waa isku wargaraynaya marka isku wargaraya maxay noqonaysaa positive ones because waxaan sheegnay hadduu minus 1 aragtid powerku muxuu noqonayaa positive ayuu noqonayaa because waa even powerku haddaa shay minus wata aragtid laba jeer ayuu isku dhacaya hadda minus 1 haddaa ku dhufatid minus 1 waxaa kusoo baxaya positive plus 1 ayaa kusoo baxaysa because powerka ayaa even hadduu powerku odd ahaan lahaa waxa soo bixi lahaa negative ayaa soo bixi lahaa markuu powerku noqdo tiro is dheer waxa soo baxa negative laakiin markuu tiro is leeg noqoto ama laba u qaysmato waxa soo baxa positive ayaa soo baxaya marka halkan maxaa soo baxaya cofactors of a1 maxaa soo baxaya plus 1 ayaa inta soo baxaysa plus 1 inta hadaa ku dhufto wax isbedel dhacay waa may marka waxa noqonaysaa waxaan qoranayaa b2 horane C3 waa ayaan qoriyaa tartiib waxaan rabaa qof walba maaragtay inuu fahmo B3 C2 intaas ay lamtahay marka waxa calaamaadkan uu qoriyo 2 iyo 3 aan u qoriyo wax weeye inaysan iska dhaxayacin ilaa waxa lagu kala ilaaliyaa moogta marka waxaan ku kala ilaalinayaa inaan isku dhaxayacin oo dadku ku khaldamin marka halka cofactors a1 waa haystaa maxaa kaloo la soo baxaya handana cofactors of a2 ayaa la soo baxaya cofactors of a2 ayaa la soo baxaya ila determinant oo socda sama marka cofactors of a2 hadaa la soo baxo waxaan sameynayaa a2 waxaan soo qaadanayaa cofactors of a2 marka waxaan qoranayaa cofactors of a2 ayaan qoranayaa abosinia xawaara leexada cofactors of a2 marka waxaan qoranayaa qaacidada cofactorka maxay ahayd -1 qaacidada ayaan soo qaadanayaa simple cofactor maxay ahayd -1 row plus column times minor ay ahayd صح marka waxaan sameynayaa -1 ayaan qoranayaa rowga oosha xagee cofactors a2 waxay ooshaa row 2 ay ooshaa column 2 ay ooshaa marka column row 1 iyo column 2 soo maaha marka maxaan isku darayaa plus 1 rowga ayaa horeyn jiray waxaan oranayaa row 1 oo lagu daray column 2 ayaa oranayaa sax oo lagu dhuftay hadhow minorka ayaan la soo baxayaa a2 minorka ayaan la soo baxayaa minor of a2 muxuu noqonayaa minor of a2 muxuu noqonayaa a2 hadii halkan kula soo baxo waxaan oranayaa relation yaa la leh maxay relation ahaan la wadaagtaa a2 column ahaan relation halkan ayay la wadaagtaa row ahaana maxay la wadaagtaa halkan ayay la wadaagtaa minorkeeda maxay noqonaysaa wixii aan la wadaagin hadda a2 maxaan la wadaagin row ahaan iyo column ahaan b1 b3 c1 c3 intaas ay la wadaagin sababtoo ah matrixka elementskan a1 a2 elementskan waxay wadaagaan oo kaliya waa row iyo column marka that's why minorka saa lagu saaraa b1 b3 c1 c2 c3 ayay noqonayaan minorka because wax relation la wadaaga marka maxay noqonaysaa marka a2 maxay noqonaysaa haddaynu qeexno waa b1 c1 b3 halkan b3 ayaan ka wadaa b3 oo ah 3
C3 inta ay helaysaa inta ay noqonaysaa waxay noqonaysaa minus of A2 waa C1 B1 C1 B3 C3 صح marka waxaan la soo baxayaa halkan ayaan ku qoranayaa minus maxay noqonaysaa minus of A2 maxay noqonaysaa waa B1 baa soo haddaan xasuusto B1 C1 B3 C3 maxaa ku xiriyaa bracket aan ku xiriyaa marka maxaan ku helayaa minus 1 kan powerka ayaan isku darayaa soo qaadanaya powerska ayaan isku darayaa waxay noqonaysaa 3 ay noqonaysaa marka maxay noqonaysaa haddaan waxaan isku dhufanayaa first ayaan isku dhufanayaa marka maxay noqonaysaa B oo lagu dhuftay C oo laga jaray kana ku dhufanaya ka jarayaa B oo lagu dhuftay C marka calaamaadka haddaan u qoro kan wuxuu ahaa B1 C3 B3 C1 ayuu ahaa marka waxaa noqonayaa bracket ayaan ku xiranayaa minus 1 kan muxuu noqonayaa hadda muxuu yahay powerku waa 3 maxaa weeye waa odd marka odd hadduu noqdo power maxaa soo bixi doona resultiga soo baxay muxuu noqonayaa isla minuska ayay soo baxay ila si iskal dheer ayuu isku dhacayaa marka maxaa soo baxaya minus 1 ayay soo baxaya yani sidaan camal way hadaa bracket ku sameeyo minus 1 oo lagu dhuftay minus 1 maxaa soo baxaya waa plus 1 minus haddii minus lagu dhufto maxaa soo baxa plus 1 ila power 3 jeer ay ahayd minus 1 kale ayaa ku dhufanaya maxaa soo baxaya plus hadaa minus ku dhufato maxaa soo bixi jiray minus ay soo bixi jiray marka maxaa halka soo baxaya minus 1 ayaa soo baxaya equal haddaan dhaho waxaan oranayaa minus 1 ayaan qoranayaa bracket B ayaan qoranayaa B1 C1 ayaan qoranayaa C3 akooda oo laga jaray B3 C1 ayaan qoranayaa marka minus 1 haddaa intaa ku dhufto minuska muxuu noqonayaa minus hadduu minus ku dhaco plus B1 ka C1 kana maxay qaadanaysaa minus ayay qaadanaysaa waxa soo baxaya haddaan ku dhufto minus ayaa soo baxaya B minus B1 ayaa soo baxaya C3 ayaa soo baxaya oo lagu daray kan minus ayaa noqonaya plus ayaa noqonaya because minus ayaa minus ku dhacaya plus ayaa soo baxaysa waxaan qoranayaa B3 C1 marka maxaa dambaysiinayaa minus BC da B1 C3 waxaa yar B1 C3 baa yar waxa weyn B3 C1 because positive-ka minuska ayaa weyn positive-ka ayaa weyn marka waa isdaba marinayaa waxaan dhahayaa waxay la sii mid tahay hoos haddaan equal kusii qorto halkan haddaan equal kusii qorto equal haddaan kusii qorto waxay la mid tahay oranayaa waxaan qoranayaa BC oo minus ah BC marka tan minuska wata maxay ahayd B1 ay ahayd C3 kana muxuu ahaa B3 C1 ay ahayd positive ay wadatay marka saas ayaa ku qoraysaa tan si hoos u qoro C1 ay ahayd marka intaas ayaa haya cofactors for A2 inta ayaa soo baxday cofactors for A2 marka maxaa sameynayaa cofactors for A2 inta hadda hayo
cofactors of A3 na cofactors of A3 maxay la noqon doontaa cofactors of A3 waxay la noqonaysaa cofactors of A3 cofactor of A3 cofactors of A3 waxay la mid tahay cofactors of A3 waxay la mid tahay ayadana maxaan sameynaynaa waxaan sameynayaa minus 1 bracket row iyo column oo show halkee A3 waxa ooshaa column 3 ayaa ooshaa iyo row 1 maxaan isku darayaa 1 kan iyo 3 ga ayaa isku daraya row ahaan marka waxaan sameynayaa 1 plus ayaa oranayaa 1 plus 3 ayaa oranayaa time is minor samayn halkan minor lagu dhuftay ayay ahayd soo marka minor maxay la noqotay A3 minor ka maxay noqonaysaa A3 column ahaan halkan ay ka tirsantahay sax row ahaan ay ka tirsantahay halkan ay ka tirsantahay marka maxaa minor noqonaya B1 B2 C1 C2 ayaa noqonaya marka B1 B2 C1 C2 marka maxaa qoranayaa minor ka maxaa qoranayaa B1 minor ka hadaan qoro minor ka hadaan qoro B1 B2 C1 C2 bracket ayaa furaya marka waxaan dhahayaa minus 1 waxay noqonaysaa power 4 ay noqonaysaa intana maxaa isoo baxaya haddaan furo marka waxaan oranayaa kan ayaa kan ku dhufanaysa wax B1 waxa ku dhufanaya C2 ayaa ku hormaraya oo laga jaray waan oranayaa B2 oo C1 lagu dhuftay waxaan qoranayaa BC minus BC marka waxaan oranayaa waa B1 C2 B2 C1 bracket marka intaas ay la mid tahay powerkan minus 1 kan maxay noqotay powerkeeda positive ay noqotay sax hadduu positive noqdo maxaa sameynayaa waxaan sameynayaa positive hadduu noqday waxaa soo baxaya number positive ayaa soo baxaya because afar jeer ayuu isku dhacaya number positive hadduu powerka even noqdo ama 3 isla noqdo waxaa soo baxa minuskan waxaa soo baxaya haddii halka ay minus tahayna numberka inta jeer isku dhaca hadda 1 haddii inta jeer isku dhufto wuxuu noqonayaa isla 1 ka ayuu noqonayaa laakiin minus 1 kan minuska wax isbedelaya hadda muhiim tahay oo intaan laakiin inta maxay ku xiran tahay numberka soo baxaya yani maxsuulka soo baxaya waxay ku xiran tahay powerka even baa soo marka hadda even 3 isla weeye waa even wax soo baxaysa positive hadduu oo dhahan lahaa 3 kala dheer ayaa soo bixi lahayd marka maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa BC ayaan qoranayaa BC oo laga jaray BC marka maxaa qoranayaa B1 C2 B2 C1 ayay ahayd soo tabta ayay ahayd marka cofactors A3 maxay la mid tahay inta ay la mid tahay marka hadda maxaan soo heli karaa determinant-iga ayaa heli karaa determinant-igi formula determinant waxay ahayd det A waxay la mid ahayd det A waxay la mid ahayd A1 cofactor of A1 cofactor of A1 waa la soo baxay cofactor of A2 cofactor of A3 waa la soo baxay marka waxaan soo qaadanayaa A1 maxay la mid tahay A1 waxay la mid tahay waxaan oranayaa A1 determinant ayaa qoraya formula determinant-iga ayaan qorayaa waxaan oranayaa taa formula determinant qora det A
maxay la tahay formal determinant-ga let a determinant maxaa loo soo qaataa bracket ayaan furanayaa delta ayaan soo qaadanayaa ila matrix maxay la mid tahay delta ay la mid tahay determinant maxay la mid tahay a1 ay la mid tahay صح a1 bracket ayaan furayaa simple bracket ayaan furayaa marka cofactor ayaa ku dhacsanaa halkan soo ma cofactors of a1 maxay la mid tahay a1 kan cofactorkeeda cofactors of a1 cofactors of a1 waxay la mid tahay b2 c3 adigu waa 2 iyo 3 3 iyo 2 asdee marshi sax marka waxaan oranayaa bc oo laga jaray bc bracket ayaan ku xiranayaa waxaan oranayaa 2 iyo 3 asdee marshi sax waa 2 3 haddana waa 3 2 ayaa oo lagu daray marka waxaan soo qaadanayaa a2 maxay wadataa minus oranayaa a2 waxaan qoranayaa a2 minus ka see ku qaadat ilaa halkan positive ahayd halkan maxay ahayd formula halkan positive ahayd laakiin see ku qaadat waxay ku qaadatay negative-ka haddaynu qeexno maxaa noo soo baxay aakhirkeeda maxaa noo soo baxay a2 waxa noo soo baxaya negative ayaa noo soo baxaya ilaa waxa ku dhacsan maxaa weeye minus 1 ayaa ku dhacsan marka waxaan rabnaa inaan soo qaadano sidatan b1 3 b3 c1 sidatan ayaa rabnaa aan soo qaadano marka waa bc oo 1 iyo 3 sidaan barna inaan soo qaadano marka waxaan rabnaa minuskan waxa ku dhufanaa a1 ka ayaa ku dhufanaa intaan barna inaan soo qaadano intaan baan doonaynaa inaan soo qaadano marka waxaan sameynaynaa kan waan soo qaadan karaa laakiin tan ayaa noogu dhow oo nooga fudud marka waxaan rabnaa bc oo 1 iyo 3 ah صح waxaan rabnaa minus waan qortay waxaan qoranayaa bracket ayaan furanayaa bc oo qoranayaa bc oo laga jaray oo ah waxaan oranayaa 1 iyo 3 ayay ahayd sax 1 iyo 3 ayay ahayd 3 ayaa haddana soo qoraysa saa ayay ahayd oo lagu daray baan oranayaa a3 because a3 muxuu ahaa positive ayuu ahaa cofactor a3 muxuu weeye positive ayuu ahaa marka cofactorkii bracket ayaa furanayaa a3 waxa weeye aan soo qaadanayo waa formula determinant-ga a3 ila a3 ayaa halka u shay marka wixii ka tarjumaysaa determinant-ga inaan si fudud u helno ayaan ku heli karnaa laakiin wixii ka tarjumaysaa midaan waa coefficients of cofactors a3 coefficient-ga weeye marka waxaan sameynayaa waxaan qoranayaa bracket ayaan furanayaa waxaan oranayaa bc ayaan qoranayaa minus bc ayaan qoranayaa laakiin isma leeka bc-da letter ayaan u qaadanaa sababtoo wax caddeynaa rabnaa rowiska iyo columnska loo kala bedelo marka maxay la mid tahay a1 a2 b2 c1 marka intaas ayaa ahayd delta hadda waxaya inta ayaa ahayd determinant of delta matrix of delta waxaya inta ayaa ahayd determinant-ga waa intaas ay la mid tahay marka waxaan sameynaynaa markii loo kala bedelo rowiska iyo columnska hadda answerka koowaad waxaan haynaa intaan ayaan haynaa answerka koowaad waxaan haynaa intaan ayaan haynaa inaan soconaa marka waxaan sameynaynaa hadda intaan waa row ahaan markii tahay matrixka hadda waa column ahaan soo ma hadaynu u tagno cashirka kor haddaan u tagno intaan maxaa weeye waa column nidaamkan
hadda column hadda marka intaan column-ka waxaan ka dhignaa row waan ka dhignaa row waan ka dhignaa yacni waxaan kala bedelinaa rowiski columniska ayaan kala bedelinaa hadda dhaltada haddaan qaato dhaltadaan baan qaadanayaa intaan ayaan qoranayaa waxaan columniski baa row ka dhigayaa marka answerka iisoo baxa determinantiga iisoo baxa waa inay ila mid noqotaa determinantiga resultiga ila in la noqoto tala la noqotaa yani muhiimadda waxa weeye haddaan koobo waa markii muxuu ahaaye aan samaysid markii row matrixka rowiska marka column u bedeshid columns marka u bedeshid columns marka u bedeshid weeye marka rowiski columnski marka isku bedeshid weeye marka hadda matrixka sideedaba nidaamka ay rowga orderka leh baa soo saarnay answerka aan noo soo marka hadda waa kala bedelinaa columnkii rowgi ayaa kala bedelinaa marka wax noo soo baxaya isku answer ayaa noo soo baxaya marka isku answer ayaa noo soo baxaya wax isbedel inuu weyn dhaceen ayaa cadeynaa ayadoo example ahaan oo by numbersna wax ka bixin doonaa laakiin hadda muhiimadu waxa weeye in la fahmo proofka in la fahmo weeye so maarta kugu fudaado answerka ee bris waxaa noqon ka dhaa moogtahay arday waa noqon ka dhayo proof gray lagu dhihi karaa laakiin waa inay ay jidho proof ahaan una fahanti weeye oo proofka ayaa wax ka miibsan laga qanay ogyahay marka waxaan qaadanayaa inta ayaan qaadanayaa rowgi iyo columnska ayaan kala bedelayaa qaabka loo kala bedelayana waa sheegi doonaa waa arki doontaan markaas haddana determinantiga raadinaa kabacdi ayaa labada answer isku fiirinaa in isku mid yihiin marka waxaan sameynayaa waxaan soo qaadanayaa dhaltada ayaan soo qaadanayaa meel kalaan tegay page cusub ayaan tegay waxaan soo qaadanayaa dhaltadii hore example-ka ayaan soo qaadanayaa oo tegaya maxay la mid ahayd waxay la mid ahayd a1 ayay la mid ahayd sax a1 ayay la mid ahayd waxay la mid ahayd a1 صح a2 أي لمد هيد رالي هذا وحربنا إلى ما تصفوا لو فهموا عشرة a3 كان قرني عندنا b1 b2 b3 C1 C2 C3 ay leedahay C3 ay leedahay marka intaas ay nolol tahay matrix kore wax nolol tahay inta ay nolol tahay matrix kore marka waxaan sameynaynaa hadda waxaan sameynaynaa rowgi baan column u bedelinaa rowgi ayaan column u bedelinaa waxaan qoranayaa marka waxaan isku kala bedelayaa leenka maxaa weeye nidaamka kan hadda maxay leedahay row 1 row 2 row 3 صح maxay kaloo leedahay column 1 column 2 column 3 صح marka waxaan rabaa hadda row 1 aan soo qaato row 1 maxay la mid tahay row 1 waxay la mid tahay a1 a2 a3 haddaan qoro 1 2 3 صح marka rowgan aartan baa waxaan ka dhigayaa column ayaan ka dhigayaa oo la dhaho column 1 ayaan ka dhigayaa columnka muxuu ahaa calaamadu waxaa weeye in laga dhigo line taagan marka kan maxaa ka dhigayaa eedani maxaa ka dhigayaa waxa la mid tahay oranayaa waxa dhahayaa eedii waxa ka dhigayaa sidaan ayaa ka dhigayaa a1 a2 a3 ayaa ka dhigayaa saas ayaa oranayaa a1 a2 a3 waxaan oranayaa haddaan bracket ku xirto saa ayaa oranayaa marka nidaamkan saa ayuu noqonayaa صح kana saa ayuu noqonayaa marka hadda maxaa ka dhigay rowgan ayaa wax u bedelay column ayaa u bedelay marka halkan ayaan ku qoranayaa waxaan ula baxayaa halkan ayaan ku qoranayaa
حرونية A1 A2 A3 A3 markaan ku qoranayaa A1 sidiisa kaga dhex yaacin A2 A3 haddana maxaa samaynayaa row 2gan ayaa waxaan ka dhiganayaa row 2gan waa waxaan ka dhigayaa columns ayaan ka dhigayaa column ayaan ka dhigayaa row 2gan haddaad soo qaato hadda row 2 waxay la mid tahay B1 haddaan boobsiiyo B1 B2 B3 markaan xaranayaa 1 2 3 sax maxaa ka dhigayaa column ayaan ka dhiganayaa waxay la mid tahay column ayay la mid tahay column maxaa lagu yaqaanay in laga dhigo line kan taagan ayaa ila row ugu jiifaa soo column maxaa laga dhigaa line taagan xaranayaa B1 B2 B3 ayaan ka dhiganayaa marka xaranayaa B1 B2 B3 ayaan xaranayaa marka equal baan oranayaa waxay la mid tahay intaas ay la mid tahay kana ay bracket ku xiranayaa marka waxaan sameynayaa B1 B2 B3 marka B2 B2 B3 oo kala qoranayaa xaranayaa 1 2 3 ayaan ka dhigayaa haddana maxaan sameynayaa kanna maxaa ka dhigayaa row 3 sidaan oo kale ayaa maraya row 3 waqti ayaan ugu dheeraanayaa haddaan mid kasta isdul taago dhaho laakiin example inta ayaa kuu filan si laga dhigo row iyo columns marka waxaan oranayaa halkan C1 ayaa oranayaa C2 C3 waxaan oranayaa C1 C2 C3 ayaa oranayaa waxaan ku xirayaa bracket ayaan ku xirayaa marka waxaan oranayaa delta waxay la mid tahay inta ay la mid tahay delta waxay la mid tahay intaas ay la mid tahay marka kan magac ayaan ka bedelanayaa waxaan oranayaa delta 2 ayaa la baxayaa delta 2 marka halka hadda maxaa sameynay delta 2 maxaa ka dhacay rows baa waxaan u bedelnay columns rows ayaan column u bedelnay waa nidaamkii ahaa qixitaanka halkan maxaa ku arkisay example-ka rows maxaa u bedelaysaa columns marka waxaa caddaynaysaa inay value-gu isbedelahayn yaa qeex value in value-gu isbedelahayn oo sidii isku answer soo baxay waa markii determinant-ga la raadinayo determinant-ga marka laakiin dhaltadan determinant-geeda waa soo saarnayo waa anaga hoos uga jeednaa inta ayaan soo baxay determinant-geeda dheedkeeda inta ayaan soo baxay delta marka delta 2 ayaa hadda soo saarnaa determinant-geeda delta 2 hadda determinant-geeda soo saarno wuxuu noqonayo haddaan soo saarno ayadana hadda ayaan u gelinaa waan ku jirnaa marka delta maxaaya delta 2 inta sax marka maxaa soo saarayaa formula ayaan ku apply garaynayaa oo ahayd waxaan sameynayaa si fudud page cusub ayaan furtaa leeyahay marka delta 2 marka determinant-ga ayaa raadinayaa determinant-ga maxaa ka horeeyay cofactors ayaa ka horeeyay marka cofactors of A1 ayaa soo saaranayaa cofactors of A1 haddaan boobsiiyo cofactor of A1 cofactors of A1 haddaan soo saaro cofactors of A1 equal maxay la mid tahay row ahaan xagee oolaa 1 minus 1 soo maahayn minus 1 formula row maxaa isku daraya column-ka kana xagee oolaa row 1 column 2 column 1 baa ka oolaa row iyo column-ka ayaa isku daraya waa 1 plus 1 sax oo lagu dhuftay minor of A1 maxaa ku helayaa minor of A1 column ahaan kan la wadaagaa row ahaan wax la wadaagaa kan ay la wadaagaa marka waxaa la soo baxaya B2 C2 B3 C3 ayaa soo qaadanaya marka sidaas ayaan soo qaadanaya minorkeeda waxaan sameynayaa B2 qoranaya
c b c aan qoranayaa bracket aan ku xiranayaa waxaan raadinayaa marka labadan haddii isku darbo maxay noqonaysaa -1 power positive ayaa soo baxaya bracket haddaan furto bracketka labadan ayaa isku dhacaya labadan maxay kala yihiin waxa weeye ahayd b2 waxay ahayd b2 c2 p3 c3 صح marka waxaan oranayaa waa b iyo c oo laga jaray kana kan ku dhacaya صح bc marka waxa uu yeelaya calaamadihii c isku dhacayeen labadan isku dhaceen waa b2 oo ah c3 c2 oo ah c3 marka waxaan sameynayaa bracket aan ku xiranayaa marka maxaa hayaa haddaan sii qoro cofactors of a1 cofactors of a1 haddaan maxaa hayaa waxaan hayaa positive ayaa soo baxaya powerkeeda muxuu noqday even ayuu noqday yani 3 isleeg ayuu noqday positive 1 ayaa soo baxaya wax muujimayo qoranayaa bc oo laga jaray bc oo kala yihiin b2 c3 b3 c2 ما يحوي وB2 صح وC2 وC2 هالكان صح مركا انت صايا هيا cofactors of A1 cofactors of A2 ولا صبح هيا هالكان maxay igu jira cofactors of B2 ayaa igu jira cofactors of B2 cofactors of B2 ayaa booska igu jira maanta A2 يعني determinant maxaa lagu saar jiray cofactors kooda labada hay saddexan kore ayaa lagu saar jiray saddexan kore ayaa lagu saar jiray waxaa la soo baxaya cofactors of B1 يعني intaan kore hadii maanta ahaan lahayd 4 hadii qayb kale raacsanaan lahayd elements kale hadii raacsanaan lahayd markaas determinant waxa lagu saaraa intaan kore ayaa lagu saaraa marka kan ayaa cofactors raadinaya cofactors ayaa raadinaya waxaan sameynayaa si simple waxaan oranayaa b1 waxay la mid tahay si simple haddaan sameeyo b1 maxay la mid tahay cofactors of b2 waa ka wada b1 miya b2 b1 way sax cofactor b2 ila position ayaa yoosha waa sidaas marka waxaan sameynayaa cofactors of b1 cofactor b1 -1 marka b1 halkee oosha b1 waxay ooshaa b1 tan waxay ooshaa column 2 hadda halka qor column 2 marka waa row 1 iyo column 2 marka waxaan isku darayaa column 1 iyo row 2 oo lagu dhuftay minorka maxay noqonaysaa b1 minorka maxay noqonaysaa b1 minorka maxay noqonaysaa line-ka maxaa weeye waa row ahaan wixii la wadaagto b1 line-kan maxay la wadaagtaa column ahaan marka waxay noqonaysaa a2 c2 a3 c3 ayay kala noqonayaan marka waxaan soo qaadanayaa a waa laba a oo ah 2 iyo 3 waa 2 waxay isleeyihiin kan 2 ay isleeyihiin iyo 3 marka a iyo cc aan isku qaadanaa 4 aan isku qaadanaa aan iska daa halkan aan ka arki karaa si simple marka waxaan oranayaa a tan qofta a kale c marka waxay kala yihiin a2 a3 c2 c3 equal marka kan wuxuu la mid noqonayaa kan wuxuu la mid noqonayaa isku darmaya powerkooda isku darmaya
wuxuu noqonayaa -1 power 3 -1 power 3 ayuu noqonayaa si wuxuu isku dhacayaa iswadaara ayuu isku dhacayaa marka wuxuu noqonayaa AC oo laga jaray AC ayuu noqonayaa marka maxaa sameeynaya waxaan qorayaa 2 3 kana maxaa oranayaa A3 C2 ayuu noqonayaa oo waxa aad u fudud marka raadinaysid bracket ayaan ku xirayaa marka -1 kan power 3 ga muxuu noqonayaa -1 kan power 3 ga -1 kan power 3 ga wuxuu noqonayaa negative ayuu noqonayaa negative -1 maxaa ka muujinaysaa negative ayaa soo qaadanaysaa bracket ayaa ku xiraysaa AC ila bracket ku dhacaya soo ma 1 kama muujinayo 1 lama muujiyo saan kala minus ayaa lagu dhuftaa minus ahaan ayaa loo qoraa intaan oo dhan hal element ay ka turjumayaan marka waxaan qoranayaa AC oo laga jaray AC oo lagu xiray bracket marka maxaynu la mid noqonaysaa 2 3 3 2 ay la mid noqonaysaa marka cofactors of P1 ay noqotay cofactors of P1 marka C1 ayaa soo qaadanaya cofactors of C1 ila booska C1 ayaa oo shamaatay maxaa sameynayaa cofactors nidaamka ayaa ku soconaysaa markasta qaybta hadda determinant raadinaysid qaybta kale saddex number ayaa markasta ku dabaqaysa determinant-iga cofactors of C1 ayaa oranaya kan C1 ayaa oranaya C1 ayaa oranaysaa marka C1 marka dhahdid waxa oranaysaa ka bacdi minus ayaa soo qaadanaysaa C1 xagee ooshaa C1 wuxuu ooshaa waa delta 2 ka hadlaya C1 wuxuu ooshaa column 3 ayaa ooshaa marka waa row 1 ay ka tirsan tahay row ahaan kaas ay ka tirsan tahay 1 ay ka tirsan tahay C3 marka maxaa isku darsaa 1 ka iyo 3 ayaa isku darsaa row 1 iyo column 3 ka kala turjumaya waxaan oranayaa 1 plus 3 ayaa oranayaa 1 plus 3 oo lagu dhuftay minor marka waxaan sameynayaa minor ayaan qoranayaa minorka ayaan qoranayaa minorka C3 waxay noqotaa minor 1 iyo column 1 minorka marka wuxuu noqonayaa A2 B2 A3 P3 ayuu noqonayaa sax inta ayuu noqonayaa marka waxaan qoranayaa minorkeeda AB marka waxaan oranayaa AB marka waa A2 B2 A3 haddaan sida kale u qoro isu hadda iska dhex yaacin A2 B2 A3 B3 waxaan ku xiranayaa bracket xigshanayaa determinant-iga equal maxaa oranaya marka kan muxuu la mid noqonayaa -1 oo powerkiisu yahay 4 kana maxaa isku dhufanayaa vice versa ayaa isku dhufanaya B3 maxay ku dhacaysaa A3 ay ku dhacaysaa marka waxaan soo gaabinayaa AB oo laga jaray AB oranaya hadda maxaa u kala muujinayaa calaamadahooda ayaa kala muujinayaa labada isku dhaceen soo ma waa labada u horeeya waa A2 iyo B3 ayaa isku dhacay marka waxay noqonaysaa A3 B2 ayay ku dhacday marka maxaa ku xiriya bracket ayaan ku xiriyaa marka kan muxuu noqonayaa powerkiisa waa positive even way marka positive ayuu noqonayaa positive ayuu wax laba muujinaya +1 maxaa ka muujinaya laba muujiyo +1 ayaa soo baxaysa oo muujiyo maxaa qoranayaa C1 maxay la mid tahay AB oo laga jaray inta ayaan qoranayaa halka ku qoran AB marka maxay kala yihiin A2 B3 weytan A3 B2 maxay soo baxay C1 inta marka maxaa qoranayaa
determinant-gii ayaan qoranayaa determinant-gii ayaan qoranayaa determinant of d2 ayaan qoranayaa determinant of d2 ayaan qoranayaa simply waxaan oranayaa determinant of d2 maxay la mid tahay determinant of d2 determinant of d2 haddaan qorto waxaan soo qaadanayaa that determinant ayaa soo gashay bracket ayaan furanayaa waxaan oranayaa d2 ayaan delta 2 ma oranayaa delta 2 ayay yahay soma delta 2 ayay la mid tahay marka waxaan oranayaa intaas ayaan oranayaa equal ayaan qoranayaa marka waxay la mid ahayd formulada waxay la mid ahayd inta maxay la mid ahayd formulada haddaan alifo formulada a iyo b iyo c way marka waxaan oranayaa determinant det 2 waxay la mid tahay a oo lagu dhuftay cofactor of a1 oo lagu daray b1 oo lagu dhuftay cofactors of b1 c yani saas ayaa u qoraya saa ayaa u alifiya marka waxaan oranayaa waxay la mid tahay waxaan oranayaa a1 bracket of oranayaa bracket ayaan furanayaa waxaan oranayaa cofactor of a1 ayaan oranayaa isla a1 cofactors of a1 isla a1 ayaan qoranayaa oo lagu xiray oo lagu daray oranayaa b1 marka waxaan oranayaa cofactor dash b2 oo lagu daray c1 cofactor waa soo gaabiyey yani kan waa soo gaabiyey cofactor ayaan ka wada soo gaabiyey cofactor hash c1 oo lagu xiray bracket ayaan ku xirsaa marka saas ayaa u raadinaysaa waxaa ku dabaqaysaa formulada saddexda element u koreeya ayaa ku dabaqaysaa markasta saddexda element u koreeya ayaa ku dabaqaysaa haddii halkan k ahaan lahayd k ayaan ka dhigi lahaa meesha b mid walba cofactorka saas ayaa u raadinaysaa marka raadinaysa determinant waa ka hadlayaa marka waxaan sameynayaa a1 baan soo qaadanayaa waxaan raadinayaa determinant-gii ayaan raadinaya a1 ta ayaan soo qaadanayaa si tartiib ayaan ugu shaqeynaya a1 ayaan soo qaadanaya ilaa halkan a1 ayay ahayd a1 soo qaadanayaa a1 marka cofactors of a1 maxaa isu baxay cofactors of a1 cofactor waxaa isu baxay b2 oo c2 laga jiray haddana waxaan oranayaa b2 oo c2 laga jiray marka waxaan soo oranayaa waa ku daahay xalli ahaa marka waxaan oranayaa bc oo laga jiray bc marka waxaan oranayaa halkan waxay ahayd b2 oo c3 laga jiray b3 oo laga jiray c2 oo lagu dhuftay c2 bracket ayaan ku xirayaa kan waxaan oranayaa halkan plus soo maaha b1 taan waxaan siinayaa minus waxaan u siinayaa sababta minus u siinaya waxa weeye b1 taan sababta minus u siinayo waxa weeye intaan ayaa minus wadata cofactors of b2 waxaa noo soo baxay minus ayay wadata marka minuska iyo pluska ayaa isku dhacaya saas ayay minus ku noqonaysaa waa inaga halkan ka aragnaa b1 waxay lamid tahay minus ayay wadata marka pluskii bay ku dhacaysay hadda ayaan tusiyey ayay ku dhacaysay marka minus ayay marka waxay lamid tahay ac
A2 C3 ay lamid tahay marka waxaan samaynayaa si fudud ayaan u qorayaa si fudud haddaan qoro waxaa lamid tahay oranayaa AC oo laga jaray AC marka calaamadaha maxay kala yihiin haddaan soo qaabiyo godadka oolaan 2 iyo 3 kala yihiin 2 iyo 3 2 iyo 3 2 3 3 2 marka waxaan samaynayaa inta ay lamid tahay oo lagu daray oranayaa C1 ayaa lamid ah halkaas waatan C1 marka oranayaa C1 bracket ayaan furayaa C1 bracket ayaan furayaa marka waxaan samaynayaa soo qaadanayaa cofactors of C1 cofactors of C1 cofactors of C1 maxay lamid tahay A2 B2 B3 صح okay haddaan hoos ku qorto haddaan halkan ku qorto waxaan samaynayaa waxaan qoranayaa AB minus AB laakiin maxay ku kala duwan yihiin godadka ayay ku kala duwan yihiin A3 A2 B3 3 2 bracket ayaan ku xirayaa marka hadhow maxaan samaynayaa si aan u helo determinantiga waa isku dhufanaya inta waan isku dhufanaya inta haddaan inta ku dhufto maxaan samaynayaa inta haddaan inta ku dhufto waxay noqonaysaa A B C bracket ayaan ku furayaa B C oo laga jaray A B C maxay ku kala duwanaanayaan waa A1 waa B2 waa B3 waa C3 halkaa maxay lamid tahay A1 taa A1 keeda waata waa B3 waa C2 weye C2 oo laga jaray BC ayaan qoranayaa BAC marka BAC ama si uu kala horeeyaan ayaa isku xijinaya eeda ayaa horeysa inta markuu dhaca ayada ugu horeysa horanayaa minus A B C B da aada sidaan eeda horeysa ma marka waxaan samaynayaa oo laga jaray kana maxaa oranayaa eedaan soo qaadanayaa B da ilaa intaa ku dhacaysa sooma laakiin waxaan kaa ilaaway minuska hadduu minuska ku dhaco maxaa soo bixi jiray plus ayaa soo bixi jiray halkaa plus wey marka B1 AC hadduu ku dhacayo waxaan soo qoranayaa alphabetical order ayaan kala qorayaa waxaan oranayaa B C marka si isku kala dhaceen mid walba godka saamay B1 halkan B1 ay ahayd A2 C3 kan muxuu ahaa B1 ayuu ahaa A3 C2 ayuu ahaa صح marka plus ay oranaya halkan plus way waxaa ku dhacaya hadda alphabetical order u qoro A B C minus A B C marka waxa la noqonaysaa B2 B3 C1 halkan waa 3 B2 sida maxaa way 1 marka waxaan samaynayaa si isku kala xigaan ayaa order u kala qorayaa si isku kala xigaan ayaa order u kala qorayaa A1 taa maxaa ku raadinayaa A1 ayaa ku raadinayaa waa xigtaa C2 da maxaa ku raadinayaa A2 da A2 ayaa ku raadinayaa A3 ga maxaa ku raadinayaa A3 ayaa ku raadinayaa si isku kala leeyihiin ayaa isku kala xijinaya marka waxaan oranayaa AB waxaan isku kala xijinayaa order ahaan ayaan u kala qorayaa marka waxaan oranayaa order ahaan haddaan u kala qoro labadan hadda A1 weeye labadan maxaan samaynayaa labadan A1 weeye A2 da ayay la wadaagtaa A2 da kan ayay la wadaagtaa صح kana ayuu la wadaagaa A3 dan
A3 dan wax la wadaagtaa kan ay la wadaagtaa marka waxaan qoranayaa inta ayaa ayaa common factor ka saaraya eedan ayaa common factor ka saaraya marka waxaan oranayaa A1 bracket furaya bracket ayaan furaya waxaan qoranayaa BC oo B2 ya B2 C3 oo ah qoranayaa BC oo laga jaray BC marka waxaan qoranayaa B2 C3 halkan maxaa weeye waa B3 C2 bracket ayaan ku xiranayaa oo laga jaray ay ahayd soo ay laga jaray ay ahayd marka A2 dan la wadaagta A2 dan marka maxaa soo qaadanaya intaan ay soo qaadanaya marka waxaan sameynayaa waxaan oranayaa bracket ayaan furayaa oo laga jaray soo laga jaray kan laga jaray waysa marka waxaan oranayaa bracket waxaan oranayaa A2 ayaan oranayaa A2 bracket ayaan furanayaa marka waxaan oranayaa kan A2 ay la wadaagtaa marka maxay gudaha ugu haraya BC ay ugu haraya BC bracket ayaan furanayaa gudaha maxay ugu haraya BC bracket kadaan qurxiyo gudaha maxay ugu haraya BC minus BC marka BC dan baa horeysa soo maaha ilaa common factor baa ka saara factor ayaan ka saaray minus ayay qaadanaysaa tan BC dan minus ayay qaadanaysaa haddii minus 1 laga saaro common factor marka waxaan sameynayaa aljabrada aad ugu sharxi doonaa nidaamyadan kale aljabrada maaragtay waa xisaab aad muhiim ah oo basic ah marka BC3 kan maxaa weeye P3 C1 way marka bracket ayaan ku xirayaa markaas intaan bracket ayaan ku xirayaa oo lagu daray oranayaa oo lagu daray ku darta si wuxuu khaldayayso lagu daray marka A3 ayaan qoranayaa A3 bracket ayaan furanayaa marka waxaan oranayaa ayadana maxaan qoranayaa PC oo ah 1 iyo 2 tan ayaa minus ku wadataa ayada common factor ka mid ah hore common factor ka saar lahaa plus weeye plus ka waa kan wax isbedel ma dhacayaan marka waxaan oranayaa PC minus BC bracket ayaan ku xirayaa marka waxaan oranayaa P1 C2 P2 C1 marka inta maxay la noqonaysaa noqotay delta 2 ay la noqotay delta 2 marka answer kan waa markii rowsi aan column u bedelna soo maahay marka waxaan rabnaa inay isku mid noqoto deltadii hore answer noo soo baxay in la mid noqoto delta 2 in la mid noqoto delta 2 in la mid noqoto ayaan doonaynaa deltadii hore inta noo soo baxday yani delta 1 in la mid noqoto deltadii hore in isku mid noqoto hadda answerka ayaynu haynaa inta ayaynu haynaa B21 hadda intii kii hore u tagno kii hore inta hayno inta ayaa haynaa deltadan waxaan haynaa inta ayaa haynaa waxaa weeye waa A1 waa B22 32 haddaan fiirino taas ku fiirino 32 halkan waa 23 sax oo meel C ah inta ayaynu haynaa sax haddaan fiirino B1 C3 31 marka waxaa soo baxay isku answer deltadan determinantigan muxuu la mid noqday determinantigan kale ayuu la mid noqday marka isku mid maxaa noo mid noqday
determinantiga muxuu la mid noqday oo deltadana muxuu la mid noqday equal muxuu la mid noqday determinant of wuxuu la mid noqday determinant of delta 2 ayaa la mid noqday delta 2 ayuu la mid noqday determinant of delta 2 ayaa la mid noqday marka waxa soo baxay isku answer marka halka waxaanu ka fahminaa sida halka aan uga jeedno hadda determinantigan wuxuu la mid noqday determinantigan ayuu la mid noqday determinantigan ayuu la mid noqday marka halka waxaan ka fahminaa halka waxaan ka fahminaa oo ka ogaanaa haddii rowiska iyo columnska isku kala bedelo elementiska matrixka haddii inta isku kala bedelo inay isku determinant noqonayaan equal determinant marka halka hadda cashirka inta ayaa kusoo koobinaa proofka ayaan kusoo koobinaa marka waana cadaynay haddii rowiska iyo columnska loo kala bedelo ama columnska row loo bedelo inuu determinant isku noqonayo inta ayaan kusoo koobi doonaa properties badan ayaa noo socda hadda maxaynu ka jawaabnay properties 1 properties badan ayaa noo socda badan ay taxamaan lagu keenaa salaamullah soo wanaagsan